Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada qaybtii qisooyinka. Waxaan ku soo qaadan doonaa qiso diini ah oo ku dhacday hooyo Soomaaliyeed deganeyd dalka Australia. Hooyadani qisadeedu waxa ay ku bilowday sida tan. Muddo laga joogo 4 sano waxaan aaday inaan soo guto xajka aniga oo watay gabadheeda yar oo aan dhalay ee markaas ahayd 9 jir. Gudashada xajka ma aha mid sahlan aniga oo dareysan inay adag tahay inaan guto howlaha xajka. Kabacdi markii aan tagay arliga barakeysan ee boqortooyada Sacuudiga waxaan go'aansaday inaan gabadheeda uga tago qoys Soomaaliyeed oo aan dhaho isi haya intii aan kasoo gudanayo xajka. Laakiin kabacdi waxaan go'aansaday inaan gabadheeda ila soo xajiso oo aan gacanta ka qabsado markaan dhawaafayo. Hooyadan oo hadalkeedii sii wadatay ayaa waxay tidhi, kabacdi markii aan gudagalnay howlihii xajka ayaa waxaa iga dhuntay gabadheedii oo aan waayay. Xajka waa meel aad u sahlan in lagu dhumo maxaa yeelay malaayiin ruux ayaa isugu imaanaysa, qof walibana waxa uu doonayaa inuu guto xajka ama waajibka saaran. Iska dhaaf inaan howlihii xajka sii watee, laba indhood iskumaanan keenin. Meel waliba ayaan maray si aan u helo gabadheedii oo ay ila tacaaleen qoysas badan oo Soomaali ah iyo howlwadeennada xajka ama shaqaalaha xajka oo adeegsaday wax waliba si ay u helaan gabadheedii. Walwalkii ayaa u sii batay. Waxaad dareemi kartaa qofkii tagaa garanayee in meesha ruuxii ku dhuma ay adag tahay si sahlan in lagu helo. Qof weyn ayaa dhumayee maxaad u malaynaysaa ilmo yar oo 9 jir ah. Ilaahay ayaan baryay in gabadheedii isku kaan soo celiyo aniga iyo ayada, ay tidhi hooyadii. Kabacdi shaqaalihii xujayda ama Sacuudiga ayaa yidhi, xaajiyo iska dhammaystiro xajkaada, anigaa raadinayno gabadhaada. Ayagoo iga qaatay gabadha sawirkeeda iyo warbixinteeda. Hooyada waxay tidhi, kabacdi markii aan dhammaystay xajkii waxaan la xiriiray dowladda Sacuudiga ama kuwii ka shaqeynaya xajka bal si aan u helo warbixin ku saabsan inanteedii. Intii dadaalkooda ah way bixiyeen. Runtii wax aan ku dagaalamo jirin maxaa yeelay 3 milyan oo qof kama soo saari karaan ilmo yar. Way ku adkaatay. Intii tabartooda ahna way dadaaleen. Waxay geeyeen xarun loogu talagalay dadka dhumay. Dadkii markaas lagu hayay xarumahaasi kuma jirin gabadheedii. Waxayna igu yidhaahdeen, xaajiyo la xiriir safaaradda, annaga haddaan helno warbixin ku saabsan gabadhaada waan kula soo xiriireynaa. Ilin iyo tiiraanyo iyo hurdo la'aan ayaan isku darsaday gabadheedii oo maqan iyo siday xaaladeedu tahay. Waxaan sii joogay Sacuudiga muddo 3 bilood ah si aan u helo warbixin ku saabsan gabadheedii, ayay tidhi hooyadaas. Ilaahay ayaan tala saartay, waxaana go'aansaday inaan ku noqdo dhulkii aan ka imid oo ahaa waddanka Australia. Muddo 3 sano ah markii ay ka soo wareegatay ayaan tagay xajka aniga oo fiirinaya ilmaha yar. Waxaan arkay ilmo dhowr ah oo taagan meel ay xujaadu marayaan. Ilmahaasi oo tuugsanaya oo kaalmo weydiisanaya, ka dalbanaya xujayda inay u naxariistaan oo ay wax siiyaan. Ishayda ayaa ku dhacday gabadh ka mid ah dadkaas tuugsanaya. Alla, waa gabadheedii ayaan af iyo labadii qabsaday. Mase gabadheedii lama gacmood ay ka go'an tahay. Hooyo miyaadan ahayn heblo? Hooyo miyaadan ahayn gabadheedii? U fiirso waalidka naxariistiisa. Ilin iyo qaylo iyo oohin ayaan isku darsaday. Dhinaca kale weli aniga oo ka shakisan weli shaki ayaa igu jiro maxaa yeelay gabadhii waa ay isbedeshay. Kadib waxaan dul istaagay nin madow oo igu yidhi, maxaad rabtaa? Ii sii daa gabadha, anaa dhale, ayuu ii yidhi. Aniguna waxaan idhi, warbax, waa gabadheedii. Anigoo dharbaax adeegsanayo ayaa dhacdadii waxaa nagu soo xoodaansaday dadkii meesha marayay. Booliis ayaa yimid. Meeshii waa nala waday dhammaanteen, aniga iyo ninkii iyo gabadhii. xarun boolisku leeyahay ayaa la geeyay. hooyadii waxa ay tidhi gabadhani anaa dhalay.
ninkii madowaa oo u dhashay dalka Suudaan ayaa waxa uu yidhi gabadhan aniga dhalay. kadib waxaa la wareystay gabadhii yareyd. gabadhii ayaa la wareystay ayadoo aan hooyadeed la joogin, waxayna tilmaamtay inay hooyadeeda kala dhumeen. ayadoo meel cidla ay marayso ayaa nin gacanta ka qabtay oo ku yidhi anaa ku dhalay. gacmaha ayuuna ka jaray oo yidhi noo tuugso si aan wax kuugu helo. allahu akbar, yaa badana. gabadhani waxaa laga qaaday DNA-ga si loo hubsado in hooyada ay dhashay, waana la xaqiijiyay in hooyadani ay dhashay. hooyadii ayaa meel ay tagto garan weyday markii ay maqashay xaaladda sida ay noqotay, waxaana lagu wargeliyay in ninkani la dili doono sababtoo ah waxa uu dambi ku geystay dhulkii barakeysanaa ee Allah. muddo gaaban kadib waxaa yimaaday gaari madow oo la saaray ninkii. waa uuna baxay gaadhigii, waana la dilay ninkii sababtoo ah waa abaal uu muteystay. hooyadii waa ay kasoo tagtay dalka Sacuudiga waxayna u soo dhooftay dalkii ay ku nooleed ee Australia. waxaan Allah ugu baryeynaa inuu ka sabar siiyo hooyada sabarkeedii oo uu ka abaalmariyo. subxaan allah, ilaahow naga badbaadi masaa'ibta adduunyada ka dhacaysa, muslimiintana xafid. aamiin aamiin aamiin. halkaa ayaanu kusoo gabagabeynayaa qisadii. waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdi Yuusuf Cabdi.